kulanti waxaan wanaagsan qiyaarta hawada inaga daawanaysa idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijkan gaarka ah oo aan kaga hadli doono khilaaf soo kala dhaxgalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaana khilaafkan gadaal ka riixay dawladaha Imaaraadka iyo Itoobiya oo taageero uu ka helayo Xasan Cali Khayre khilaafka ayaa dhawaan soo shacbaxay wuxuuna salka ku hayaa dhisidda ciidamo lagu magac daray difaaca shacabka oo ay dhisayaan dawladaha Turkiga iyo dawladda Qatar waxaana ciidamadaasi lagu gol leeyahay inay badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed oo dhibaatooyin xoogan kala kulmaya kooxda Al-Shabaab laakiin ciidankaas dhisidiisa waxaa ka soo horjeeda dawladaha Imaaraadka iyo Itoobiya oo u arka in Soomaaliya ama diidan in Soomaaliya ay yeelato ciidamo xoog badan horaantii bishii la soo dhaafay ayaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa ku kulmay Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo kamid ah jawaasiista waaweyn ee u shaqeeya dawladaha Imaaraadka iyo Itoobiya iyo Xasan Cali Khayre waxaana Khayre lagu tashkiiliyay in laga hor yimaado ama in la joojiyo dhisidda ciidamada difaaca shacabka oo wada madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir laakiin Xasan Cali Khayre ayaa kula heshiiyay Umar Cabdirashiid in khadka laga saaro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loo fuliyo awaamirta ka soo baxaysa dawladaha Imaaraadka iyo Itoobiya oo diidan Soomaaliya inay yeelato ciidamo xoog badan taas oo keentay in khilaaf xoogan uu soo gala dhaxgalo dawladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu wadaa in socdaal uu ku tago isku taga Imaaraadka Carabta qodobada Khayre uu diidan yahay waxaa sidoo kale kamid ah ka sokow dhisidda ciidamada difaaca shacabka in xal laga gaaro khilaafaadka hareeyay dawladda dhexdeeda gaar ahaan baarlamaanka iyo waliba xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha beesha caalamka oo ugu horeyso dawladaha Turkiga iyo Qatar ayaa waxay soo jeediyeen in la dhiso dawlad wadaag ah waxaana lagu heshiiyay in la dhiso dawlad ay ku jiraan xubno ka tirsan baarlamaanka gaar ahaan kooxda Qabyo oo uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud miisaanna ku leh baarlamaanka Soomaaliya agaasimaha madaxtooyada oo arintaasi kamid ah xubnaha dhaxdhaxaadinayay ayaa waxaa dalka Turkiga uu kula kulmay muddo 2 mar ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed oo kamid ah madaxda hogaankii ka horeeyay kan hadda madaxda uu ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana xafiiska madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale kooxda Qabyo ee ku heshiiyeen in la dhiso dawlad wadaag ah taas oo uu ka baqayo Xasan Cali Khayre haddii ay dhacdo in xilka ra'iisul wasaarnimo uu waayo wuxuuna Khayre uu ka soo horjeestay gabi ahaanba in wada hadal la furo kooxda mucaaradka ee ku jirta baarlamaanka Soomaaliya asoo u arka in wax walba lagu dhameyn karo xoog xalkana uu yahay xoog laakiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wada hoolan nabadeen ah oo nabadoonnimo ah si xal loo gaaro waxaana taas ay keentay Khayre inuu u shaqeeyo cadawga Itoobiya iyo Imaaraadka oo ah cadawiyada ugu waaweyn ee Soomaaliya ay leedahay kana soo horjeeda in dawladnimo Soomaaliyeed la gaaro Xasan Cali Khayre ayaa dhawaan u ama bixi doona dalka isku taga Imaaraadka Carabta si uu u fuliyo howlaha Imaaraadka ay doonayaan waxaana Khayre hadda la socda Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo siyaasiyiin kale oo yar oo danley ah kuwaasi oo ku xiran dawladda Imaaraadka Carabta lacag qarashaad badan ay siiyaan waxaana la sheegay xafiiska Khayre inay soo gaartay lacag $2 milyan ah oo ay soo dirtay dawladda Imaaraadka si laga taqluso madaxweynaha Soomaaliya laakiin dadka daraaseeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay sheegayaan khilaafkan soo kala dhaxgalay madaxtooyada Soomaaliya iyo Xasan Cali Khayre inuu ku bixi doono Xasan Cali Khayre waxaana dadka qaarkiis ay leeyihiin waxa dhici karta Khayre in lagu bedelo gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed oo si xaq darro ah Khayre uu eriyay kadib markii uu ka baqay in xilka ra'iisul wasaarnimo ee Soomaaliya lagu bedelo Taabid ka hor khilaafka intuusa soo shacbixin laakiin khilaafka hadda ka dhex jira madaxtooyada Soomaaliya iyo Khayre ayaa ah mid official ah haddaba dib aan u milicsano 8 Febraayo sanadkii hore bishan oo kale markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qaladaad waaweyn oo dhacay guud ahaanna mas'uul uu ka ahaa ra'iisul wasaaraha hadda talada haya Xasan Cali Khayre kasoo bilaaw weerarkii lagu qaaday meel ku dhow degmada Abgooye ee gobolka Shabeellada Hoose oo lagu dilay dad shacab ah waxaa la sheegay in amarkeeda uu bixiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uuna fuliyay taliyihii hay'adda sirdoonka ee xilka laga qaaday Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe oo kamid ah xubnaha hadda sida weyn u adeegsanayo ra'iisul wasaare Khayre sidoo kale weerar lagu qaaday Jilib waxaa la sheegay inuu fuliyay taliyaha sirdoonka ee nabad sugidda qaranka Sambalooshe oo ka haysta taageero ra'iisul wasaare Khayre waxaana labada weerar lagu dilay dad shacab ah
sidoo kale khayre dambiyada waaweyn uu ka galay qaranka waxaa ka mid ah dhiibistii sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka oo loo dhiibay dowladda Ethiopia kaas oo lagu magacaabi jiray Colonel Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax waxaana sida warqadan ka muuqata dhiibista qalbi dhagax mas'uul ka ahaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo ku amray Sanbalooshe in loo gacan geliyo dowladda Ethiopia asoo u shaqeynaya Ethiopia weerarkii guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa mas'uuliyadiisa iska lahaa Ra'iisul Wasaare Khayre wuxuuna amar siiyay kusimaha taliyaha nabad sugidda jaamac oo ah wiil dhalinyaro ah oo u shaqeeya Sanbalooshe waxaana weerarkaasi fuliyay taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Saadiq John uu Sanbalooshe keenay waxaana amarkeeda iska lahaa taliya Sanbalooshe iyo sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya hadda waqtigiisa gabaabsiga uu yahay Khayre weerarkii Generaal Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid gurigiisa lagu qaaday ayna fuliyeen ciidamo ka amar qaata isku taga Imaaraadka Carabta iyo taliska nabad sugidda gobolka Banaadir waxaa amarkaasi bixiyay jaamac oo ah wiil u shaqeeya Sanbalooshe isla markaana waxaa amarkaas bixintiisa iska lahaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo dowladda isku taga Imaaraadka Carabta si la iskugu diro madaxweyne Farmaajo iyo Cabdi Qaybdiid laakiin Generaal Cabdi Qaybdiid oo ah shakhsi wax badan og shalayna shir jiraacid Muqdisho ku qabtay wuxuu weerarkaasi mas'uuliyadeeda dusha ugu tuuray isku taga Imaaraadka Carabta wuxuuna soo jeediyay baarlamaanka in si degdeg ah arintaasi ay mooshin kaga keenaan si Imaaraadka meesha uu kaga baxo waxaan ka codsanayaa xubnaha baarlamaanka federaalka oo ka kooban labada aqalka sare iyo golaha shacabka iyo gudoonkooda in ay guddi u saaraan golayaasha si ay u soo hordhigaan arrintan horseedi karta khatar ku wajahan jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed maadaama ay caddahay in ay jirto faragelin qaawan ee shisheeye ee keeni karta burbur iyo xasilooni darre qaranka ku keeni karta Soomaalida waxay wada og tahay Imaaraadka Ethiopia in ay yihiin cadawga Soomaaliya laakiin Imaaraadka Ethiopia siyaasi walba la socdana waxaa loo arkaa inuu yahay mid ka soo horjeeda danaha Soomaaliya Khayre isma weydiinin dhacdooyinkii uu geystay sanadkan oo gabi ahaanba mas'uuliyadeeda asiga uu leeyahay asoona u shaqeynaya dowladaha Imaaraadka Ethiopia haddaba goor la soco qaybta labaad ee barnaamijkan ku saabsan khilaafka soo gala dhax galay madaxweynaha Soomaaliya iyo Xasan Cali Khayre oo mas'uuliyadeedu uu leeyahay Khayre